الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعة الصومالية لحدي أرونيمو waxaan ku suganahay isbitaal Shaafi halkaas oo aan keenay walaalaha muxsiniinta ee bishii Ramadaan u soo direen lacag oo isku qalo waxay ahayd ballanteena in aan Ramadaanka marka laga baxo hore laga qalo laakiin maadaama uu ka shaqeynaayo meel xal uu ku gado ninkiina ay ka imaadeen Ramadaan oo waqti badan ay ku qaadatay inay xisaabtamaan maanta ayuu Ilaahay qadaray inaan walaalkeen subaxnimadan arooriyada ah aan u soo wadno isbitaalka halkaasna aan maarkino check up kiisa iyo processka uu mar lahaa ay bilaabatay marka maanta noo bilaabatay noo soo duceeyo wixii update ah idila socodsiin doona insha Allah taala walaalkaas oo aan maalin iyo bar gudaheeda ugu aroorinay lacag $1,200 ee walaalo u soo direen asagoo u baahnaa in eerno dhibaato ku haysto aabahaas oo la shaqeysa waayay aan rabnay inaan ka caawino in laga qalo marka aad u mahadsantiin walaalaha insha Allah taala waa idila socodsiin doona wixii update ah ee aan kala soo kulanno adinkana noo soo duceeyo waa maalin khamiis ah insha Allah taala soo duceeyo waxa qayb igala barnaamijka walaalkii Ibrahim Hitis iyo Dooyo iyo walaalkii Maanika oo asagana naga maqan marka soo duceeyo insha Allah taala aniga ku hadlaya magaca Erdoon Foundation oo mar walba u taagan in ay dadka baahida hayso iyo dadka wax rabaan inay la baxaan isku xiraan kaliya shaqadeena kaliya waa volunteer oo aan isku xir Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh السبع الشداد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي بالرشاد أشرقت نفسي بسم الله الرحمن الرحيم هذا waxaan ku suganahay dhaqtarka hortiisa qolka aan jeeda waa dhaqtarkii markii insha Allah markii aan ka soo baxno wixii aan kala soo kulano kulli qeyr ah jeedina insha Allah taala iyo maalinta qaliinka loo sameeyo doono marxaladaha uu mari doono marka noo soo duceeyo walaalkeen waa kana Maxamed Ahi laba kalmood insha Allah taala waan geeyna walaalkii qaliinka waa kana Maxamed waaye waa aabihii shaqaysanayay oo eerno caloosha u taalo dhibaato ku haysi insha Allah taala haddaan insha Allah hawshiisa galayna walaalkii Dooyo wuxuu fadhiyaa marka Ibrahim waa kaamirada aad u mahadsantiin oo soo duceeyo insha Allah hadda marka maanta ka soo baxno ayaa wixii akhbaar ah waxa kala soo kulay dhaqtarka la wadaagay Assalaamu calaykum حينما رددت يا رب العباد مقاجك مسؤولية هذا مسؤولية مرك أكذا واحد عضو أنه كان عندنا أي سنة ولا عصر مركو واحد فايد سنة كنا على شو قدرة كنا وحركة تدور مثل خصوصا جرك وقريب إلى روح من الدفاع حرب راح شوف معنا حياتنا سنتين هو أنت صار سنة قبل في دولة واللغة كل جن يبقى السؤال ويكرر سؤال ما راح في سهل سؤال بس أنا سمعت أنت سائل عميله يا حمد خلق إندونيسيا يا حمد إذا كنت المرة الأولى إذا سويت تخصص في الفقهين ما يعني المطلق كفكر لو صحنا مثلا كان بها قتل الرسول والحماس والجماعة تلك يا إلهي خذ بقلبي بالرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رأى
رب العباد. وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. للهدى والحق وفقني إلهي، فعلى